jimcaha dhaweeyay Mareykanka iyo Iran isku hor fariisan doonaan caasimadda Islamabad ee dalka Pakistan way saragii koowaad ee ducahan yeelanayaan tan iyo khamiistii asbuucii ugu dambeeyay bishii February ee sanadkan oo 28keedii uu bilowday dagaalka Iran ka dhanka ah ee Mareykanku la kaashaday jaalkiisa Israel kaasoo ugu dambeyn lagu hakiyay xabad joojin 2 toddobaad ah oo Pakistan soo jeedisay labada ducood waa Mareykanka iyo Iran si wada jira u aqbaleen taasoo gogol xaar u abaalayay dhaqangelinta 10 qodob oo Iran soo saartay kuwaasoo dagaalka heshiis dhamaysa looga gaarayo inta aynan u gudagelin sida xabad joojintani ku timid dib u gurashada Donald Trump iyo guusha Iran loo tirinayo aynu marka hore dhugano waxa ay ahaayeen qodobada Iran soo saartay Mareykanku uusan go'aanka ku lahayn ee loo badinayo inay sabab u noqdeen xabad joojinta la gaaray qodobada oo aynu intooda muhiimka ah horay u baahinay ayaa kala ah in si dhammaystiran dagaalka loo joojiyo xabad joojinku meel gaar ahna aan la aqbalayn in damaanad loo helo Iran dib dambe Iran loo weerari doonin in la joojiyo weerarada ka dhanka ah xisbulada Lebanon la joojiyo guud ahaan weerarada gobolka ka socda maya Iran kaliya in Iran laga qaado cunaqabataynada Mareykanku saaray iyo kuwa caalamiga ahba intaas Iran waxay dhaafsan doontaa inay xanibaada ka qaado gacanka Hormuz iyadoona dejin doonta hanaan nabdoon oo maraakiibtu marinka uga gooshto waxay Iran sheegtay inay lacag jid maris ah oo $2 milyan ka qaadi doonto markabkii walba ee gacanka mara lacagtaas oo ay la qaybsan doonto dalka Cumaan ee isaguna kulaala bariga gacankan qodobadan oo Trump ugu yeeray kuwa lagu shaqageli karo ama wokibala waxay u muuqdaan kuwa ka durugsan guud ahaan doonistii Mareykanka iyo Israel ee ahayd inay Iran ka takhalusto bacriminta nidaamkeeda nukliyeerka joojiso horumarinta gantaalaheeda ridada dheer sidoo kalena ka tanaasusho kaalmada ay siiso kooxaha iyada taageera ee gobolka ka dhisan qodobadaas oo ahaa kuwii Iran horay u diiday loona badinayay inay sabab u ahaayeen bilaabashadii dagaalku miiskaba ma yaalaan aqalka cadna sidaas ayuu ku aqbalay inuu ku furmo geedi socodka heshiis ee jimcaha loo madlan yahay sida khubrada xiisadani qabaana tani waxay muujinaysaa in Mareykanka iyo jaalkiisa Israel ku guuldareysteen inta badan hadafyadoodii dagaalka Iran ku khasbanaadeen inay sida ay u jabeen u dhutiyaan oo si doorasho la'aan ku aqbalaan dawga Iran u aragto joojinta dagaalka hayeeshee miro dhalka muddo xabad joojineedan ku meel gaarka ah waxa jaangoyn doona natiijada Islamabad ka soo baxda taasoo rajo weyn laga qabo inay xal dhamaysa u keeni doonto joogsiga dagaalka docda kale Israel oo u muuqatay inay goor horeba khilaaftay aqbalaada aqalka cad ee qodobada Iran ayaa si wada weerarada ka dhanka ah Lebanon waxa ay ku doodayaan inaan heshiiska xabad joojinta xisbiga Lebanon qayb ka ahayn halka dhinaca kale wadamada gacanka Carbeed iyana walaac ka muujiyeen inuu wali gacanta Iran ku jiro oo arriminta gacanka Hormuz taasoo ay wadamadan GCC la isku yiraahdaa ay ku doodayaan inaysan xaq ahayn